السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وعشر كني لبي طبنات وقيبينتا عاو حنقص قدان دونا لبجد اللو قيبين يشن جد لبجد لها أنا وعشر كي جدا بيان لبجد لها وقيبينتا عند جالنا هين وح عشر كنوح قدان دونا سدح جد له يا بلابين دونا إن شاء الله تعالى تصالحش نقول ريو حويه لبعتي زدت كون يشن بقص ديت يشن اللو قيبيه أفري طبعا haddii lacag inta leeg oo tan hore hoos maxaa tan gudaha ku jira waxaan ku sheegnay inay yihiin la qaybsadayaashii banaanka tirada taala inay tahay cidii wax qaybsanaysay marka haddii 14 qof ay qaybsanayaan 28500 14 qof walba intee ku soo aadamaysaa taas ayaan ka jawaabaynaa marka waxaan dhahaynaa laba gudba banaanka yaala saadarteed gudaha laba gud oo kamid ah soo qabanaa 14 tiro marka lagu 38 keenaysa waa tiradee ardayga xifdisan wuxuu dhahayaa tirada keenaysa waa laba weeye sababta markii laba 14 lagu dhufto 38 keenaysa hay ku dhufo 2 lagu dhufto intee weeye waa 8 laba lagu dhuftayna waa labo ayaan kala jin 8 laga jiro eber laba laga jirana waa eber markaas waxaan sameeynaa 5 baa la soo deginaa laakiin 5 waxa ogsoonahay in ay ka yadhahay 14 sidaas awgeed maxaa sameeynaa eber baa dalacaynaa eber marka dalacna tirada ku xigta 5 oo 8 ah baa soo disheena maxay noqotay 28 baa noqotay hay 14 markii tiro lagu dhufto 28 keenaysa ma garanaysaa tiradaas tiro keenaysa kulay ma jidho laakiin tirada u dhow waxay noqonaysaa 4 bi noqonaysaa hay 4 hadaan 4 ku dhufano waa 16 qoro 4 aan saarno 4 lagu dhufto intee weeye waa 16 qoro maxaa wataa halba wataa 4 hal lagu dhufto waa 4 ilaa halkii 5 maxay noqotay 26 bi noqoto hay 8 laga jaro intee weeye waa 2 5 laga jarana waa eber hadana waxa soo dejinaa tirada ku xigta ah 5 labaatan tiro keenaysa ma jiro hadda markii lagu dhufto laakiin waxa ugu dhow hal baa ugu dhow soo haddaan laba ku dhufan 14 laatiisdid noqonaysa way ka badnaanaysaa waxay noqotay 14 aan kala jarno 5 afar laga jaray waa hal laba hal laga jarayna waa hal buu noqon maxaa way haraagu 11 buu noqon 11 ka haraabay noqonaysaa marka xisaab sidaa tahay waxaan sameeynaa hubintii waa sameeynaa hubinta waxa dhaynaa 2041 oo lagu dhuftay 14 aan ku dhufano marka waxaan marka 4 hal lagu dhuftay waa 4 lagu dhuftay 16 qoro hal baa wataa 4 eber lagu dhuftay waa ebertii halka watay qoro 4 laba lagu dhuftay waa 8 hal lagu dhuftay waa hal 4 lagu dhuftay waa 4 hal eber lagu dhuftay waa eber hal laba lagu dhuftay waa 2 hayaan isku darna marka 4 lix hal lagu darantay weeye lix hal lagu daraa 7 hal 4 lagu daray waa 5 8 soo deji labadan soo deji laakiin wali meesakiin laakiin maxaa sameeyna haraaga ma iloowin haraaga 12 ku dar marka haraaga hadaa iloowdid xisaabtu khalad bi ka noqonaysaa marka waliga haraaga ha iloowin haraaga mar walba xasuusno marka aan ku darno marka maxay noqonaysaa 4 hal lagu daray waa 5 7 hal lagu darayna waa 8 inta kale soo deji waa 5 iyo 28 macnaheedu marka 28 kun iyo 585 halkaan maxaa ku qoran 28 kun 585 saas ay isku keentay maxaa xisaabtii salaana wuxuu noqonayaa 67400 oo loo qaybiyay 32 marka laba god banaanka noo yaala markaas waxa sameeynaa tiro waxaan raadinaa markii lagu dhufto 32 keenaysa ma jidho laakiin tirada u soo dhow maxay noqonaysaa 2 noqonaysaa laba lagu dhuftay waa 4 laba saddex lagu dhuftayna waa 6 marka waa kala jarana marka 67 laga jaro 64 weeye 7 laga jaray waa 3 6 laga jarana waa eber marka tirada ku xigta soo dejino 4 weeye hay tira keenaysa 34 miyaa jidha arday markii 32 lagu dhufto macalin ma jidho weeye marka tirada ugu dhow maxay noqonaysaa hal baa ugu dhow oo 32 keenaysa hal laba lagu dhuftay waa 2 hal saddex lagu dhuftayna waa 3 hay 4 laba laga jaray waa 2 saddex laga jarana eber bay noqonaysaa marka marka marino waxa soo dejinaa tirada ku xigta oo eber ah marka soo dejino waxa dhaynaa 20 iyo 32 markaas waxa weyn 32 weyn sidaas awgeed waxaan sameeynaa in aan eber u saarno aan soo dejino noqonaysa tirada ku xigta eber u saar tirada soo xigta soo deji 200 bay noqoto 200 tirada markii lagu dhufto 32 keenaysa miyaa jidha ma ilaahi waxa uu soo dhow 6 baa ugu dhow 6 laba lagu dhufto intee weeye waa 12 labadii qoro hal baa wataa 6 saddex lagu dhufto 8 halkii 19 muxuu noqday 192 ayuu noqday kala jar marka halka soo qaado waxaan 9 ba ku hadhay halka soo qaado 10 laba laga jaro waa 8 9 laga jaro eber
hal laga jarana waa eber haraagu muxuu noqday haraagu 8 buu noqday markaas waxaan sameeynaa waa hubinaa way hubinta sameeynaa hubintuna waa ardaygu fahmaya waxa way 2106 oo lagu dhufto 32 haragna 8 lagu daray ayuu noqonayaa marka saasa ku hubin ka dhaa xisaabtiisa hubintuna way ka fududahay markii la eego muxuu ahaa u qaybinta sababta halkan ba ka soo khaldan tirada markii lagu dhufto tirada keenaysa taas khaldi kara ardaygu khaldi kara laakiin hubintu way iska fududahay oo tirada kore ku soo baxday waxa ku dhufan 32 hadaa haraahaysatana haraaga ku darsanaysaa way tan waxa way 84,600 oo loo qaybi 40 banaanka laba god baa noo yaala sidaas dadka laba god gudahan soo qabsanaa markii saata waxa dhahaynaa tira markii lagu dhufto 40 oo keen 84 ma jidha ardayga haduu dhaho ma jidho waxaan fiirinaa markaas tirada ugu dhow hadda 84 tira keenaysa ma jidho sidaa darteed waxaan fiirinaa tirada ugu dhowna waxay noqonaysaa laba noqonaysaa laba eber lagu dhuftay waa eber laba afar lagu dhuftayna waa 8 aan kala jarno marka afar soo deji 8 laga jarana muxuu soo baxay eber buu soo baxay maxaa soo dejinaa 6 soo dejinaa maxay noqotay 46 waa u qaybsantaa 40 dabcan marka waxaan fiirinaa tirada marka ugu dhow maxay noqonaysaa hal buu noqonaysaa sababta hadaan 40 laba ku dhufano 8 buu noqonaysaa 8 uu ka badan yahay tira ka badan ee loo baahan tirada wax loo baahan yahay haddii tirada raadinaysa tirada keenaysa ama tirada ugu dhow raadinaysa marka wuxuu noqday 40 buu noqday aan kala jarno 6 soo deji afar laga jarana waa eber marka sidaa tahay waxaan dhahaynaa eber soo deji marka waxaan tira markii lagu dhufto 40 60 keenaysa ma jidho sidaa darteed wali waxa u dhow hal baa u dhow haddaan laba ku dhufano way ka badnaanaysaa 8 bay noqonaysaa hal baa ugu dhow waxay noqotay 40 bay halka noqonaysaa eber laga jaray waa eber 6 afar laga jarana waa 2 marka sidaa tahay waxaan soo dejinaa tirada ku xigta eber baa laba eber weeyaa soo khaldinina laba eber weeye eber soo deji 200 marka ardayga waxa raadisaa tira markii 40 lagu dhufto keenaysa 200 tiradaas waxay noqonaysaa 5 bay noqonaysaa dabcan 5 bay noqonaysaa sababtoo ah haddaan 5 afar ku dhufano waa 20 eberkaas hadii lagu darano 200 buu noqonayaa 5 eber lagu dhuftay waa eber 5 af lagu dhuftayna waa 20 way aan kala jarno eber laga jaro eber laga jaro eber laba laga jarana waa eber xisaabta hadaa hubino wuxuu noqonaysaa 2115 oo lagu dhuftay 40 eber haddaan kulli ku dhufano waa garanaysaa waxay soo baxayso eber bay soo baxaysaa eber 5 lagu dhufto eber hal lagu dhufto eber hal lagu dhufto eber laba lagu dhufto labo eber lagu dhufto labo eber afar 5 lagu dhufto waa 20 eberkii laba wataa afar hal lagu dhufto afartii labadii ku dar 6 buu noqday afar hal lagu dhufto waa afar laba lagu dhuftayna waa 8 eber 6 afar 8 maxay saad soo baxday xisaabtu waxay soo baxday 84,600 bay soo baxday hubintii sax bay noqotay xisaabta marka hubinaysid waa ka taxadis waxa isku fiirinaysaa tirada halkan taala tirada halkan noo taalay ayaa isku fiirinaysaa marka maxay soo baxday 84,600 ayaa soo baxday jawaabtuna saasay sax ku tahay weey haye 61,120 haddaan u qaybino maxaa condition maxay intee soo baxaysaa marka hore laba god banaanka noo taala waxaan raadinaa laba god baa raadinaa tira markii lagu dhufto maxaa condition 61 keenis ardayga ma haysaa ardaygu wuxuu fahmaya in 61 iyo condition uu safar weyn u dhaxayn saas darteed tirada ugu dhow waxay noqonaysaa hal bay noqonaysaa condition hal lagu dhuftay waa condition aan kala jarno halka soo qado 15 laga jaray inta weeyo 6 halkaana 5 bay ugu hadhay 5 laga jarayna maxay 5 laga jaray noqonaysaa ardaygu 5 laga jaray waxay noqonaysaa eber haye marka saa tahay 8 soo deji 68 Soomaan tira markii lagu dhufto condition 68 keenaysa isla ayadina waxay noqonaysaa isla intii Soomaan waxay noqonaysaa muxuu ahaa hal bay noqonaysaa haye condition hal lagu dhuftay waa condition 8 laga jaray intee weeye waa 3 6 laga jarana waa hal weeye maxaa soo baxay 13 ayaa soo baxay marka 13 markii soo baxo waxaan soo dejinaa tirada ku xigta oo ah eber tirada ku xigta oo labaan soo dejinaa 132 weeye ardaygu waxay sheegtaa tira markaan condition ku dhufto 132 keenis ma jidhaa
tiradaa tira 132 keenaysa haddaan 3 ku dhufana ka waran haddaan dhahno 3 lagu dhuftay 55 laba haddii ugu dhowtaa ka waran laba haddii 55 lagu dhufto 110 bay soo baxaysaa saa darteed laba ugu dhow weeye laba ugu dhow laba u saarayna ardayow laba 5 lagu dhufto waa 10 ebrika qor halba wataa laba 5 lagu dhufto 10 ilaa halkii 12 132 iyo 110 baa kala jaraynaa laba eber laga jaro waa labo saddex hal laga jarna waa labo hal laga jarna waa eber tirada ugu dambaysa maxay noqonaysaa eber noqonaysaa hay 220 ka warama 220 maxay soo baxaysaa 220 waxay soo baxaysaa tiradii lagu dhufto waxay noqonaysaa 4 weeye haddii 54 lagu dhufto 220 bay soo baxaysaa hay 4 lagu dhufto intee weeye waa 20 eberku qalaba wataa 4 lagu dhufto waa 20 ilaa labadii 22 maxay soo baxday 220 bay soo baxday haddii la kala jarantay weeye eber laga jaro eber laba laga jaro eber laba laga jarana waa eber wax haraa ma soo harin marka waa hubiina xalena 1124 oo lagu dhuftay 55 haye 5 lagu dhuftay waa 20 eberka qor laba wadataa 5 laba lagu dhuftayna waa 10 labadii ku dar waa 12 12 labadii qor hal baa wadataa 5 hal lagu dhufto waa 5 ilaa halkii 6 5 hal lagu dhuftayna waa 5 haye 5 4 intaana waa isla intiiba noqonaysaa marka waxaan noqonaysaa eber sababtoo hadda 5 iyo 2 shanaad weeye isla intii waa soo noqonaysaa eber 2 6 5 isku dar marka eber 2 eber lagu dar waa 2 6 2 lagu dar waa 8 5 6 lagu dar intee weeye waa 11 soo 11 halkii qor halba wataa tan waa 6 maxaa soo baxda 61 waxay soo baxday 61 iyo 820 bay soo qof walba wuxuu intee u qaadanayaa 124 buu qaadanayaa 55 qof lacagtii qaybsanayeen waxa weeye 61,820 weeye marka arday waxa sameeysaa casharkan ku celi xisaabtan ku celisteeda samee marka insha Allah taala waxay ku noqon doontaa sida ugu basiisan baa u fahmi doontaa insha Allah taala ku celinteeduna faa'iido ku tahay marka insha Allah taala casharka ku xigana waxaan bilaabi doonaa 3 god oo loo qaybinayo 3 god saas casharna ugu socon doona insha Allah taala